een maanta waxaa jaaliyadda reer Holland sharaf u ah oo runtii farxad weyn u ah inuu marti u yahay danjire ambassador Maxamed Cali Nuur oo dadka ay u yaqaanaan Cali Americo. waxaan rabay horudhac inaan ka dhigto inaan u sheego ambassadorka in jaaliyadda badankeed maalmahan aan lis arkin imaatankaaga fursad weyn oo wuxuu noo dhaliyay in anaga iyo xataa aan is aragno xanuunadii corona oo jiray oo daraadood dad badan oo rabay inay caawa meesha imaadaan way u suurageli weyday saacadaha iyo daqiiqadaha soo socdana dad badan baa imaan doona haddii ilaahay yiraahdo oo barnaamijka nagala soo qayb geli doono. waxaan raaligelin ka bixinaynaa oo dadka martida aan usoo jeedinaynaa inaan ka xunnahay in dadka qaarkood waqti hore yimideen dadka qaarkoodna ay gadaal ka yimideen oo waqti dheer laysa sugayay laakiin wax mashaakil ah ma lahan Soomaaliyan u nahay oo arintaasi waa baranay. structure-ka maanta wuxuu yahay marka hore dhowr qof baan waxaan siin doonaa fursado ay dhowr eray nagu yiraahdaan kadibna ambassadorka ayaan waxaan siin doonaa fursada ugu dheer isagaan dhageysan doonaa maanta isagaa waxaa noo ah martida ugu muhiimsan ee aan dhageysan doono. wuxuu nooga sheekeen doonaa kuley buuggan quruxda badan ee uu noo soo diyaariyey kadibna waxaa jirta fursad qof walba shakhsiyan wixii uu jecel yahay inuu ambassadorka inuu la wadaagi karo isku sawiri karo buugga ka saxiixan karo la wadaagi karo sheekada uu noo sheegay waxa isaga markaasi uu ka qabo. hadda waxaan rabay inaan ku bilaabo in ay marka hore barnaamijka dadkii soo abaabulay oon jeclahay runtii iyagana inaan u mahad celiyo oo ay dumar u badnaayeen iyo dhowr qof oo iska kuley dhalinyaro ah oo aan magacyadooda hadda meeshaan aan kusoo koobi karin laakiin waxaa u hadlayo oo laba eray xagga abaabulka shirkan iyo kulankan quruxda badan oo noo sameynaysa. marka hore Ruqiya Cadow oo aan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo. Ruqiya soo dhaw. waa idin salaamay dhammaan martida sharafta leh ambassador Maxamed Cali Americo walaalkay Cabdullaahi Aadan oo in badan naga maqnaa farxad aan ku soo dhaweeynaa gudoomiyahayna jaaliyadda Epson walaalkay Cali Waare runtii aniga magac un baan wataa maayne haweenka hortiina fadhiya ayaa hawsha qabtay ila qabtay wax kale oo aan sidoo qabtay ma jirto laakiin afkooda anoo ku hadlaayo waa idin soo wada dhaweeynaa intaan ka badanaan rajeeyayna waana filaynaa inay imaan doonaan in badan jidkay ku soo jiraan dadkaana ujeedidna dad badan soo wada wakiishay xogaa safarkii laftigiisa dhibkiisu lahaa oo waxay ka cudur daarteen inaan soo bixi karin sidaa daraadeed wakiilan wadanahay marka saan muuqyarna uma waxa yar aniga marka buugga waxaan ku fasirayay qof walbana aan dhahay marka halkaas buug gadato afar wax oo muhiim ah sida hadda ayada quruxda badan uu noogu sheegay Abuukar iqra ah ayaad kulmisatay koow ayadaas iqra aad rumaysay oo wax akhrinta ku saabsan annaga waxaan haysanaa badanaa diin ahaan af Soomaaliga akhrinta inuu kamid yahay Carabi kaliya ma aha af kastood wax ku akhriso hadaa wax akhriso waxba ku kordhay labo dad soo wada qaxaanahay af Soomaaliga ku qoran yahay hooyooyinka iyo aabayaasha inta badan waa yaqaaniin ilmahayna ma yaqaaniin ilmihi guriga marka uu yaal marka fursad ay afkoodi hooyo ay ku bartaan aan siihaynaa midda ugu muhiimsan oo maxaa dhigi jiray anna waxa waaye ilmo kale iyaga lamida oo fursad ay heleen aan helin oo wadanka joogo ayaa wax lagu baraa midda iigu muhiimsan aan u daba mari laakiin runtii u muhiimsana waa hay'adda isaga mas'uulka ka yahay ilmahaas jaaniska siisan inay wax bartaan oo cafinta iyadana tusaale u ah oo ah Yasmin Foundation gabadhiisi laga dilay ee dagaaladii sokeeye dadkii galaabsaday ay ku jirtay kamida oo awood iyo wadno u yeeshay inuu ninkii dilay oo yiraahdo xor ah tahay xaqiiqa aakhiri adduun midna lagu ma haysto marka shan muhiim ah oo aan sahlanayn ayuu buugaas xambaarsan marka qofkii gadato ha u niyeysato intaasna ani waxaan aaminsanahay wadaad ma ihi cilmigeyga iyo waxa aqligeyga ka socdaa inta ugu fiicano lagu janno tagay inay tahay marka cunug Soomaaliyeed wax barto marka iscafinta darteed wax u gadato markaad ilmahaagi wadankoodii dhaqankoodii aad barto markaad adiga aayad Ilaahay ugu horeyso soo dejiyo iqra ahayd adoo rumaysan inaad wax akhriso maxay fahmi kartiin marka taasa darteed ayaan runtii aad igu dhiirigelisay weegaan igu howl badnaa laakiin ugu yaraan bilan hawshan ku jiray inaan hal saacadood galiyo xataa ila ma ah
hadduu hadda sii joogi lahay waan rabi lahaa inaan wadanka dhan dhowr magaalo kale aan u raaco wallaahi inay run tahay marka saas darteed aad ayaan kugu mahad celihaa insha allahu iyo ajarkeedna waad heli hadda ood agoontiyo inta liidatoo idil iskuul aad u diriyo aqoon aad barayso u dhisayso aayaha maskaxda aad u shiisho buuggaagan aadka ah buuggaagan aadka ah ku abbaartay buuggaagan aadka ah ku abraartay waaye alleyl badan qorayso indhuhu ay ku daaleen inaan iibsanaayo uluufaad aan bixinna awood baan u leene asxaabta joogtiyo inta ereygan maqashaay ayaynan u kala harin inaan iibsanaya yaynan u kala harin dhammaan soomaaliya oo dhan ayuu anfacay waxaan ahay dadka oo aadka isbiirta u badan tahay xamaasadeyda badan marka ma hadli karo waa idin salaama khayr badan idin rajeynaa Soomaali taariikh waxaan leenahay rich history macnaha taariikh aad muhiim u ah ama laakiin waxaan ugu yar qoraal ma wax ma qorno waxaan oral society-ga la yiraahdo ayaa nahay wax ma qoran laakiin waxaa fiican qof kastaba hataa ma aragtay 30 sano ku dhawaad ayaa halkan joognaa qof kastaba wuxuu maray in macnaha loo qoro si ay dhalinyaradu u arkaan dhalinyarada hadda waxa waaye oo wadankeena 75% waa dhalinyaro laakiin dhalinyarada muxuu ahay kama warqabaan waagi kacaanka sidoo ahay waayadii dambe waa ciyaal macnaha dagaalka ka koray dad badan oo runtii wax ka qoray way jiraan laakiin waxay u badan yihiin af Ingiriis ay u badan yihiin waxa fiican hataa af Soomaaliga in lagu qoro macnaha inaan waxaan ku guwaabinayaa dadkeena inaan qoraalada aan badino aniga hataa waxaan rabaa na pension hadii Ilaahay yiraahdo inaan qoro muxuu ahaayay waxyaalihii macnaha taariikhda macnaha ugu soo maray insha Allah waxaan jecelahay inaan si farxad leh aan u soo dhaweeyo Danjire Maxamed Cali Americo runtii aan wada naqaan walaalkayo adigana waxaan ku leeyahay ku soo dhawaaw wadanka Holland oo runtii aad hore u timid maaha markii kugu horeysay mar labaad soo dhawaaw runtii arinta maanta aan isugu nimid oo ah buuggan muhiimka ah runtii danjiraha uu qoray mudanna in la gato sida la sheegana ujeedada ka dambaysa runtii aad iyo aad ay muhiim u tahay macno weyn xambaarsan oo taabanaya meelo fara badan oo ay ka mid yihiin hogaaminta sida wax loo hogaamiyo waxa ku jirta qayb ka mid ah maamulka ama shaqada la xiriirta dawladnimadu siday u shaqeyso way ku dhex jirtaa qaybay ka mid tahay marka laga reebo danjiraha familigiisa iyo kuritaankiisii iyo ma aragtay sheeg waxbarashadiisii waxa kaloo buuggan qayb ka ah markaad akhriso oo iyadana ku jirta qayb muhiim oo ah iscafinta oo iyaduna muhiim ah sidoo kale dib u heshiisiinta iyo nabadda waxa kaloo qayb ka ah u shaqaynta mujtamaca loo shaqeeyo ama bulshada gaar ahaan dadka jilcan marka runtii buuggan macno badan oo ballaaran ayaa ku jira insha Allah waa si fiican ayaan wada akhrisan doonaa intaas waxa ka sii muhiimsan oo iyada laftigeedu in la xuso mudan maadaama uu yahay buug ku qoran afka Soomaaliga runtii luqadda Soomaaliguna ay tahay wax mar walba aan ahaano runtii inaan maxaa la dhahaa ii sheeg aan trots aan ku ahaano runtii sababtoo ah waxaan aragnaa tusaale ahaan wadamada dariskeena kaliya usoo qaado Soomaaliya Itoobiya Kenya ama wadamada kale Afrikaanka ah waa unique dadka Soomaalidu runtii waa dad gaar ah marka taariikhda dib u fiirsato sababtoo ah mujtamac isku af isku dhaqan isku diin ah kii ka tagay kii ku yimid Soomaaliya gees ilaa ka gees mujtamac saas ma jiro hal af leh taasna waxay ku tusaysaa dadka Soomaalidu marka laga reebo arrimaha siyaasadda oo conflict ay ka imaan karto inay yihiin dad hal famil taasoo ah hadda geedka markaan fiirino wuxuu leeyahay jirid ma la dhaxaa moogtaa yani weyn laakiin jiridaas laamo badan ay bixisaa Soomaa laantaas waxa laga yaabaa laan inay sii dheeraato oo caleemo badan ay dhasho midna waxa laga yaabaa inay gaabato caleemo badan dhasho laakiin muhiimadu dadka dhan waxay ka wada yimideen geedkaas dadka Soomaalida anigu waxaan aaminsanahay inay yihiin hal famil aan marka hore u mahad celinaya qabanqaabiyaashii ruqiyo iyo salaad iyo mataqaan wala badan yahay gudoomiyaha ya Ali xildhibaan kan waa kana mar isku ay dambeysay
kulligiin magaciida ma wada sheegi karo laakiin aad umahadsan tihiin waa ay sharafteen allah idin sharafo kama tegin walaalkay iga yar kama tegin abuukar oo xalay aan isbaranay mataqaanaa iyo hadda gabagiisa yara aad baan ugu mahad celinayaa buugga haddaan ka waramo buugga waxaa la dhahaa danjire macnaheeda waa ambassador waxaan kaloo iloobay mataqaanaa farsaxanka weyn ya oo hadda isoo xasuusiyey waagaa yaran iyo maqaayadeeni mataqaana ku taala lido oo ku sawiri jiray mataqaana farsaxanka aada asagana ugu faraxsan inaan maanta is aragno oo kulano danjire waa ambassador ama waa safiir magacaas anagoo bug markaa dhameeyey raadinayo waxaa ku qoran magaciisa ayanaha saaxiibanahay u yihah nuurudiin diiriye ayaa magacaas isiiyey oo copyright saas kale asagaa magacaas aan ka qaatay marka waana magac fiican waa ku mahadsan yahay qoritaanka buugga waxay u qaadatay 3 sano muddo ku dhow waa buug ugu horreey aan qoro waa marka la qorayo buug ugu horreey markuu yahayna waxaa waaye usually waa dhiba kala kulmaysaa marna xataa ku dayay inaan joojiyo sababtoo ah waa ku dhibtooday laakiin alxamdulilah saaxiibo iyo dad qoryaal ah ayaa gacan siiyey oo igu dhiirigeliyey inaan dhamaystiro waana ugu mahad celiyey buuggaas mataqaana hadda dhamaaday markaa dhameeyey waxaan ka bilaabay inaan ku daafuro ama aan ku iibiyo Soomaaliya waan ka bilaabay xamar sababta waa taqaana meena sababta ugu bilaabay xamar ma aha inay tahay madaxa Soomaaliya waxa waaye waa meesha ku dhashay waa ku soo koray aan ka bilaabay markaan kooga bilaabay buugga qoritaankiisana iyo daabacadiisa dabcan waxa ku baxday qarash badan ku baxay lacag ku baxday waqti ku baxay laakiin maalintii aan go'aan gaaray inaan ku daafuro Muqdisho xamar habeenkaas dad badan ayaa meesha yimid oo ka soo qayb galay waxaa ku dhalatay oo aan go'aan u gaaray in habeenkaas aan dhaho oo go'aansado buuggaas wax ka soo baxo inaan ugu yabooho ama ugu mataqaanaa aan dhaho lacagtaas waxaa la siinayaa kulligeed hay'adda Yasmin Foundation hay'adda Yasmin Foundation maxay tahay marka hay'adda Yasmin Foundation Yasmin waa gabadh daasi la sheegay gabadheedii ugu yareed markaas oo jirtay 18 bilood lagu dilay xamar ayaa magac daray hay'adda hadda waxay furan tahay almost 8 sano iyo ku dhawaad ay furan tahay waxay qabataa iskuulaad ayaa xamar iyo banaankeeda ka furnay iskuulka u horeeyey waxaa ka furnay magaalada xamar banaankeeda meel dhaho cirfid iskuulka waxaa dhigato arday ilaa 200 arday gaarayso ee isku jiraan wiilal iyo gabdho ha u badnaadeen gabdhaha qarashka dhismaha kaliya qarashka ku baxa macallimiinta iyo bugaagta kulligood anagaa dhiibna dowlad iyo hay'ad kale siisa ma laha aniga iyo ilmahayga ayaa mataqaanaa bixino mataqaanaa ilaa hadda bixinayna ilaa almost 8 years wax badanna ma aha ilmahayga sababtaa u dhahay bixiya aniga alxamdulilah waan bixin karaa mataqaanaa dhib magu haysto laakiin ilmaha maadaama ku dhasheen dibadda waxay iga ahayd ha bartaan in la iskaalmeeyo in la iscaawino aniga xashaa Allah hadii la weydiiyo maanta la dhaho yaa waay hiroga yaa waay dadka ku dayatid yaa waay hooyaday iyo aabahay waa hooyaday waxaa la xawo muddo gacal midda kale hadii la weydiiyo hooyaday waxay ahayd ama taan dhihi karaa qofka ugu qurux badan waa the most beautiful woman waa hooyaday midda kale waxay ahayd qof aad u naxariis badan salaada way taqaanaa salaada markhaati ka amena hala anu waxay dhimatay anoo jiro 9 sano waxyaabaha aan ka bartay ama ugu daydo xashaallah horta lama hooyada ma gaari karo mar taqaan waxay sameyn karo laakiin waxyaabaha ka bartay waxaa ka mid ahayd inay mar kasto nagu mataqaan noo sheegi jirtay in dadka la caawino masaakiinta gurigeena markii wax la cunayo qadada iyo ama cashada waxay dhihi jirtay inta wax cunin koogii dadka dariskeena ah oo masaakiinta ah waxaa loo geeyo marka waa wax aan isku dayo mar kasto inaan ku daydo aabahay allah raxmatiisa asagana cala ameerika dhihi jiray asagana waxyaabaha uu mataqaana mar kasto lagu dhiirigelin jiray waxay ahayd waxbarashada buuggana asagoo iyadoo detail ugu waramay wuxuu aad annaga iyo waalahey nagu adkeyn jiray waxa la barto
waxbarashada waa muhiim waaye dadkiina wax u tara